ayadoo maalinta ka dambaysa ay si xoogaysanayaan asxaabta siyaasadeed ee u tartamaya xisbi qaranyada Somaliland ayaa maanta ay ahayd maalintii saddexaad urur siyaasadeed ka wadani ay taageerayaashiisu fantaksiga iyo damaashaad kala duwan ku soo mareen suuqyada iyo wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah caasimadda gobolka Daadmadheedh ee Oodweyne taageerayaashan boqolaalka kor u dhaafay ayaa waxa ay ku labisnaayeen dharka hidaha iyo dhaqanka calanka muuqa dheer leh u gaarka urur siyaasadeed ka wadani la markaana kor u qaadayay boodhar iyo sawirro ay ku dhagan yihiin musharixiinta ay kala taageersan yihiin musharixiinta sida weyn uga dhex muuqday meesha ay taageerayaasheedu buux dhaafiyeen magaalada ayaa waxaa ka mid ahaa murashax Cabdixakiin Axmed Ibraahim Dhalax murashax Cabdixakiin Nuur Muuse Mawlid Daahir Xirsi iyo murashax Axmed Maxamed Silaayo iyo murashaxiin kale aad u tiro badan fantaksiyadan iyo dabaaldegyadan kadib musharixiintan cududda weyn ka haysta magaalada Oodweyne waxa ay taageerayaashooda kala hadleen magaalaha xafiiska guud ee uu ku leeyahay ururka gobolka iyaga oo hoosta ka xariiqay hamigooda waxqabad haddii ay ku guuleystaan xilka waxa iyaguna ka hadlay qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka gobolka gabagabadii madashan ballaaran ay buux dhaafiyeen taageerayaashu saafmeeray gudoomiyaha gobolka Daadmadheedh ee urur siyaasadeed ka wadani isagoo halkaasi ka soo jeediyay hadallo mahadnaq iyo bogaadin isugu jira isla markaana ku dhiirigeliya inay maalinta codbixinta isla garab taagaan cudud iyo codkooda musharixiinta da'da yaryar leh u tartamaysa golayaasha deegaanka degmada Oodweyne runtii waxaanu leenahay anagu waxaanu dareensanahay baahina soo ragaadisay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay iyo hadday biyo tahay hogaamin wanaagsan iyo wax ka bedel toosan oo aanu rajaynayno maalmaha ka mid ah inaad nagula xisaabtami doontaan laba ujeedo ayaynu leenahay inaynu xildhibaanadii ugu wanaagsanaa u soo saarno Oodweyne iyo qodobka labaad oo ah inaynu soo saarno xisbigii aynu la xisaabtami lahayn xisbigii Oodweyne maanta ugu dhawaa xisbigii aynu mustaqbalkeena ka dhigan lahayn asayidka wadada haddaanu nahay waxaan naga balan oo naga go'an sidaan horeba idinku sheegnay inaanan cunto u iman dhaqaalo u iman lacag aan u iman laakiin aan u nimi badbaadinta dibdhaca deegaanka ka muuqda oo aad iyo aad loola yaabay daayar oo isu soo sharaxay golaha deegaanka Oodweyne marka xiga meelo badan oo kulley Oodweyne dhaliishiisa ayaan doonaa inaan wax ka qabanno haddii alla ka dhigo sida caafimaadka waxbarashada waxaan leeyahay xisbigani waa xisbi aynu ku kalsoonahay waa xisbi wixii aynu gashanay haddaynu nahay gobolka Daadmadheedh ilaahay haddii uu ka dhiga aan filayay inuu inooga abaalgudo taageerayaal ururka wadani waxaa lagu tilmaamaa hayinku waxaynu ogsoonahay inuu yahay kan haamaha iyo carruurta la saaro isla markaana loo bixiyay haddana biyomadaadsi wararka naga soo gaaraya deegaanada ka tirsan gobolka Daadmadheedh degmada Xaaji Saalax degmada Harashiiq tuulada Xaaxi tuulada Beerato tuulada Ceelsame tuulada Ceel Bilcile waxa ay sheegayaan in fantaksiga iyo dabaaldegyo noocan oo kale loogu dhigay urur siyaasadeed ka wadani si kastaba ha ahaatee urur siyaasadeedkan wadani ayaa ah ururada sida xooggan looga taageersan